السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ninkii Trump ahaa u waash dhaqaalihii adduunka ugu galgash. Marka waxa weeye isbuuc hore waa aragteen markana asagoo halkaas taagan halkaas intuu taagnaa buu wuxuu ballan qaaday in uu canshuur ku badinayo alaabaha oo Mareykanka la keeno oo loo dhoofiyo. Intuu hadlayay baa shirkadii Mareykanka baa khasaare weyn baa soo gaartay. Wujida numberkan koonada ku jiro u fiirsado. Marka shirkadaha Mareykanka qiimahooda hoos u dhacayaa wujidaan. Marka qoladan oo numberkan soo saaraysa waxa weeye waa Fox News weeye waa qolo la jirta Trump weeye. Marka intuu hadlayay baa shirkadii Mareykanka live ahaan u khasaarayaan numberka hoos u socdaa weli wujidaan. haddana waxa weeye CNBC journalka la dhaho oo khudbadii soo saaraysay haddana u fiirsado shirkadaha Mareykanka waxa weeye sheerarkoodii hoos buu socdaa wujidaan. weli minus bay u socdaan hoos bay live ahaan ugu socdaan. marka talxumada odaga meesha la taagnaa oo ahayd canshuur kordhiska oo waalid ahayd waxay sababtay in oo shirkadaha Mareykanka oo waaweyn sida Apple oo kale iyo Nike iyo Coca-Cola iyo waxaas oo dhan shirkadaas oo dhan in oo qiimahooda uu hoos u dhaco $6.5 trillion laba maalmood gudahooda. saas waxaa soo xaqiijinaya report soo qoray sidaan wujidaan. $6.5 trillion oo khasaarada ahayd saas buu egyahay wujidaan. marka trillion baa maalmahan bilaabatay in la isticmaalo. marka haddii fikrad leedka siiyo khasaaradaas intay la eg tahay hadda kasoo qaad dhaqaalaha Soomaaliya waa $14 bilyan baa lagu qiimeeyaa wujidaan. marka khasaaradaas shirkadaha Mareykanka ay ku khasaareen laba maalmood gudahooda iyo Soomaaliya dhaqaalaheeda marka la isku barbardhigo khasaaradaas waxay weyn tahay 461 jeer bay ka weyn tahay dhaqaalaha Soomaaliya. marka maanta khasaarada weli waa sii socotay. hadda isbuuc hore $6.5 trillion baa lagu qiimeeyay khasaaradaas ahayd. maanta 10 trillion bay sii maraysaa. khasaarada ugu weyn waxay soo gaartay shirkadda Apple waa taqaanaan badanaa shirkadda oo iPhone ka samaysa. ayaga waxa weeye shirkadaas qiimahooda 9% hoos u dhacay. laakiin waxaa khasaaro weyn soo gaartayna nimanka ugu taajirsan adduunka soo jeedaan kuwan oo halkan taagan oo ka mid yahay Musk iyo Bezos ka madax xiran iyo Zuckerberg. ayaga waxa weeye laba maalmood gudahooda bay ku khasaareen $500 bilyan bay ku khasaareen oo qiimaha sheerarkii haysteen baa qiimahooda hoos u dhacay $500 bilyan wujidaan. marka $500 bilyan waxa weeye haddii loo barbardhigo dhaqaalaha Soomaaliya oo hadda soo arkeen oo lagu qiimeeyay in ahayd $14 bilyan waxa weeye khasaaradaas baa ay ka weyn tahay dhaqaalaha Soomaaliya 36 jeer.